بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إلهي سبحانه وتعالى ما تسكنه ويعمل كان آدي أدواوي من فيه ونغم النيسي من عندي فضلا من عندي سبحانه وتعالى. فإلهي سبحانه وتعالى نعمل كيس آديات يوفر بدين سنة وصادرني marka ilaahayna maaragtay waxaan ka baryaynaa inuu nicmooyinkaas oo noo daa'imiyo oo noo ziyaadiyo oo fadligiisa maaragtay aan ku noolaano fi dunya waalaakhira. fa intaa kadib maanta waxaan jeclaystay maaragtay in aan ka hadlo maaragtay nuqdooyin aada iyo aada xoogaa muhiim u ah oo zamankan maaragtay runtii aada iyo aada ay u fara badatay waxyaabo oo maaragtay dadkii يعني moodid maaragtay in ay maaragtay bisabab alfitan inay qofku waxyaabo ay ka qarsoon yihiin oo laakiin uu u baahan yahay maaragtay inuu helo. fa sidaan ogsoonahay waxyaabo waxaa jiro oo qofka bini aadamka markii uu isdejiyo uu fikiro yani xaaladiisa uu fiiriyo waxyaabo badan ayuu arkaa, laakiin markii uu isku socdo oo maaragtay danihiisa ka raacanayo waxyaabihii ayaa ka qarsoomayo marka uu iska dhadhacaa maaragtay qofkii waxyaabo wuxuu ku dhacaa marka akhtaa oo aan fiicnayn. saa darteed shareecada ilaahay subxaana watacaala waa noo soo dejiyey wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsun ma qadamat ligad wattaquu llaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun. waa tawjiih oo rabbaani ah oo ilaahay subxaana watacaala oo nagu wajahayo oona loo dhawaaqayo dadka sifada iimaanka iskale. ninka markuu sifada uu leeyahay ilaahay subxaana watacaala sifadaas ayuu dadka ugu dhawaaqaa yaa ayuha aladiina aamanuu. haddii sifadaas uusan lahayn qofka ilaahay subxaana watacaala dadkaa kale wuxuu ugu dhawaaqaa yaa ayuha annaas. yani dadka bini aadamka ah maaragtay oo sifadaas iimaanka aan lahayn wax badan ayaa ka maqan. laakiin qofka bini aadamka hadduu ilaahay subxaana watacaala uu ku manaysto sifada iimaanka ah uu rumeeyo ilaahaysa abuurtay nabi maxamed caleyhi salaatu wassalaam qur-aankan oo ilaahay uu kusoo dejiyey nabiga caleyhi salaatu wassalaam lihidaayati innaas. marka iimaaniyaadka markuu laga helo qofka oo arkaan aliimaan laga helo wuxuu noqonaa qof maaragtay yani ilaahay subxaana watacaala dadkii oo u dhawaaqayo sifa khaasa oo u dhawaaqayo ayuu kamid noqonaa yaa ayuha aladiina aamanuu. marka tawjiihaadka ilaahay subxaana watacaala khalqigiisa uu siinayo waa tawjiihaad maaragtay yani qofkii loo baahan yahay marka hore inuu xerada islaamka soo galo oo ilaahiisa uu barto ilaahiisa uu ku xirmo oo markaa khatawaadka markuu soo maro qofka oo ilaahay uu barto oo maaragtay oo ilaahay uu maaragtay qaabilo oo ilaahay isku dhiibo oo garto inuu addoon ilaahay inuu yahay oo markaa uu barto waxyaabaha laga rabo iyo waxyaabaha laga reebayo. marka tallaabada koowaad qofka inuu maaragtay fahmo maaragtay inuu rabbi inuu leeyahay oo abuurtay oo loo baahan yahay maaragtay rabbigaas inuu caabudo oo ka dambeeyo oo u hoggaansamo. markii laga helo maaragtay iimaankaas istislaamkaas markii laga helo oo ilaahay uu hoggaansamo islaam markii laga helo oo yiraa ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah oo markaa oo markhaati uu ka noqdo oo qiro oo u hoggaansamo maaragtay ilaahay ilaahnimo oo u qirto isaga keliya inuu ilaahay yahay oo markaa iimaanka oo qalbigiisa uu galo nabiga caleyhi salaatu wassalaam inuu yahay rasuul ilaahay inuu yahay oo ilaahay uu soo diray wax alla wixii uu noo soo gudbiyana inuu yahay wax ilaahay maaragtay agtiis ka yimid oo markaa uu u hoggaansamo wixii tasdiiq u baahanna oo tasdiiqiyo oo rumeeyo wixii akhbaar ah wixii maaragtay takaaliif ahna uu qaato oo hoggaansamo oo ilaahay uu leeyahy subxaana watacaala wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh. wax alla wixii nabi maxamed caleyhi salaatu wassalaam oo idin soo gaarsiiyey oo markaa tawjiihaad ah oo awaamir ah nawaahi ah aqbala.
سمعنا وأطعنا قفك إنه يرادو مركا حرادة مركا صوت قال قفك قفو قادنا مركا مارت وحيابها اللو باهية مارت إنه السميع ونولش كيسي إنه كوهذو أخلاق ديسي صفات كيسي معاملة ديسي ذكر أدونك كل نول نحيك ليهين وضد منافقين جرو ضد واحد جرو إلهي حريص ولي أن توقلن وقاله ضد واحد جرو مسلمين أو مارت حرادة كل جرو مرت قلوب البصير ولا التعامل لها نولش كيسي حقه إلهي وعابد لها يعني وحيابها سؤالا أي إلهي سبحانه وتعالى كتاب تسؤول له شيء مركا أركز نداءات الإيمان يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وفي جرين صحابة ما فأرعي سمعك لكت هذا الرعي وصف عن أولئك هذا الكاية أصدق وإلهي وكو مارتي وكو يرايم قف أجعش هاي قف وين مركو كيرا يا فلان كالي مركو كيرادو يا فلان مركو كيرادو مارتي أذيك بن أي سوق قابلة وحسب ذا كان وغني ومارتي يعني مكان ذا سايسكو وأود داس له ومارتي يعني وحياة بدن يوقوق بنكرة وحياة بدن أيوه مارتي كسين كرة وحياة مرك إلهي سبحانه وتعالى مرك وقود واقع وإن قلب جاء وحاجة أسجي استامك وقابشة نص كان القرآن إذا إلهي حق يسكتفت يعني تفضل إلهي حق يسكت إيمانه يعني توجيهها إلهي حق يسكت إيمانه إن أقادتت وأفهمتت وأقادتت أي اللوبهين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون القرآن كمركا حساب ما قدر أي قدرت يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا مركا انتاس أو يا أيها الذين آمنوا أو مارتي محاك برتي ميقا مارتي نداء مركا دعان كدب محاب عي وأوامر عن مارتي توجيهات وحيابها محان ولش هذا يكبدشي قف واحد جرأ صم بكمنا القرآن كأن أقول جيرين ومارتي كأنه مارتي لم يقرأ كأنه لم يسمع ومركا محلقية حتى القرآن كأنه فروق وأقريه لكن مارتي لا يتنبه لهذا أبرع سنين وحيابها أسدع مركو حلوبة هي مارتي القرآن كأنه قرأ وقاله مر والبا إنه مارتي هشيت يعني توجيه هشيت مارتي تصحيح نوش هذا للصحة ومارتي فهم كاغي للصحة يعني درد كاغي لفهم للصحة أخلاقيات كاغي للصحة عبادات كاغي للصحة إلهي سبحانه وتعالى مارتي برشدي مر والبا سي برانيسي وأن مارتي كالجوك لهين وإلهي سبحانه وتعالى وقول ربي زدني علما آيات مركز سودته آيات كالمركز سودته إلهي سبحانه وتعالى مارتي مؤمنين وحكومة نيستي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إيمان أي يكون زيادة نساء ترقي أي يكون زيادة نساء مرحلة كلا يأوسي جد نساء لكن قفك مسلم كهدي القرآن كي وكذب عليه وقلبي في القرآن كي ومارتي وفرنين وحنا نقولنا قف مركا مارتي يعني حليس كجرنا هاي توجيهات كذا قادنيني هذا جرنتها وتخترك وكيرا وحا سمي وحا كار وأبي يلين مرض كاغ أيا كسبنا نساء بل مرض كاغ واسي زيادة حالة هذه حالات كفن أيا سي قليسان هاي المر كدن بايو واسي مارتي وقفي درسنيسان سوى كلي مارتي إيمانيات كاكون وشاي هذا توجيهات كرباني هذا قادنين حالة هذا استاغيسا دب أيا أقرنيسا قلبك إيمانك أيا سي ضعيفة إلى مركز أو سي دمو شعلة إكادنتو قلبك نورك أو كبحه أو مركز مجدي أو مارتي أو هريريد إنك مسلم كمركز تاسو وبحه حلو بهاي مركز مارتين أو قدريه القرآن كان سجأ أنا يسلف كمان فرق ينوضح يوحي يا القرآن كان مركز لا تعاملين يجوا لا تعامل جرين كأنه رسالات من ربهم توجيهات إلى حق سكينة أو مارتي يجعل الله الله هذا أقرأ القرآن كإن لوس الدجيز مارتي دسكي هورا وضم هذه علاقة أذن اللهين وقرآن كأسكبر في سنة سكرية وأما أسكاخر السنة مركي لحنوسية قفك القرآن اللي هو أقرنا يقرأ يعني القرآن كاس وكاد بولين وكاحرين وحلو بين القرآن كي إن أفرتد
وإلهي سبحانه وتعالى بريسي إنه إلهي قلبك وفره. الله مفتح مسامع قلبي لذكرك، يعني قلبي وحول لي مسامع لي وحياه ومقلوب لي قلبي هدول، لكن سمعي وكده بولين عرفتي كده بولنتها وقلبي ويا قلبي الضبولن وحبا عن نقلين وحبا عن قرنين وإدراك عن لهين. يعني القرآن هدول لقيسته، حديث هدول لقيسته، قبل هدول لقيسته وحبا اسم كل صعنين قف كاس كل قف مارك آدي مارك نلشي سي خطر وصلت هاي. marka waxaa loo baahan ninka muslimka in uu maaragtay qur-aankan oo yani si fiican oo u fahmo khatawaad ayaa jiro oo loo baahan qofka muslimka marka in uu qur-aanka maaragtay uu ku gaari karo yani habkii loo baahnaa inuu gaaro. bimacnaa waxay tahay maarata ilahi wuxuuna amray afalaa yatadabbaruuna alqur'aan, qur-aanka inaad fiirfiirisid oo ku tadabbursid oo dhegtaada ina fi dalika ladikraa liman kana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid. qalbigaaga hadduusan darajada gaarin waxaa loo baahan alqa sam, dhegtaada inaad raaricisid oo maarata intibaah aa siisid yani qur-aankan maaragtay si fiican aa u dhegeysatid. marka taa waxaa ku gaari kartaa waxay tahay maaragtay in marka hore maaragtay tacdiim alqur'aan inaad samaysid, qur-aanka inaad weyneysid inuu yahay hadalka ilaahay inuu yahay oo risaalada ilaahay oo adiga oo kuusoo dejiyay ay tahay oo loogu talagalay inuu kaa bixiyo dulumaadka aad ku sugan tahay nuur inuu kuu bixiyo, diiqa aad ku sugan tahay inuu kuu bixiyo maaragtay nafas weyn inuu kuu bixiyo, kurbada iyo mashaakilaadka iyo maaragtay waxyaabaha yaryarka oo maaragtay danahaaga ah oo ciriyoobay maaragtay inuu kaa bixiyo oo kuu bixiyo maaragtay majaal fasiixa weyn. marka yani qur-aanka inaad weyneysid inuu yahay maaragtay kitaabka ilaahay, in uu maaragtay loo baahan yahay marka maaragtay in aad fahamtid qiimaha qur-aanka uu leeyahay. hal xaraf marka akrisid 10 xasano ayaa kuu taala meel. marka isku day marka maaragtay qur-aankaas in aad fahamtid. maxaa ku fahmi kartaa waa in aan furayaalkeeda aa haysataan oo aad barataa maaragtay qur-aankaas macnihiisa aad barataana, qur-aanka lafdigiisa marka hore oo maaragtay aad fahamtaa. lafdiga qur-aanka markaa fahamtid oo ilaahay subxaana watacaala maaragtay aa weydiisatid inuu qur-aanka kuu furo qalbigaaga uu u furo, waa khatwadii labaad. maaragtay ilaahay marka hore aa ku xirnaatid oo ilaahay aa baridid oo maaragtay qur-aanka inuu qalbigaaga u furo, macaanida qur-aanka maaragtay alfaadeeda iyo tafsiirkeeda in aa maaragtay aad dhegeysatid oo aad baratid. kadib marka waxaa imaaneysa marka maaragtay futuuxaat rabbaaniya, ilaah ayaa kuu furaya qalbigaaga ayuu u furaa, nuurkaas ayaa qalbigaaga galaya. adigii muhaya aad tahay, diyaar aad tahay inaad qaadatid wixii qalb maaragtay oo kuu yimaado. yani adawaadkii waa baratay oo maaragtay alfaadii qur-aanka macaanideeda waa baratay oo sidii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii iyo qawaacidii tafsiirka loogu talagalay oo saxdeed waa baratay si loo fasiri lahaa. marka waxaa kuu furfurmaya marka maaragtay tawjiihaadka ee qalbigaaga galaya. adigii waxaa noqonaysaa nin maaragtay yani xaalad ka baxay xaalad kale usii socda oo markaa saa usii socda oo xataa maarata darajaadka aad kusii soconaysa qur-aanka uusan istaagin xataa fi dunya keliya maan aakhira naftigeeda ayaa darajaadka sii gaareen. jannada markaad geshid ilahi subxaana watacaala wuxuu leeyay ninka qaari qur-aanka irqa wataraq fa ina manzilataka cinda aakhir aayatin taqra'uha. marka qofkii maaragtay qur-aankii marka uu ihtimaam uu siiyo qur-aankii inuu barto lafdigiisa uu saxdo marka hore akriskiisa, macaanidii uu barto alfaadii, kadib markaa maaragtay uu noqdo nin maaragtay qur-aankii qadariya oo weyneeyo oo ixtiraamo oo maaragtay garto inuu hadalka ilaahay inuu yahay oo markaa maaragtay qaabilo qur-aankaas ilaahay subxaana watacaala. marka maaragtay aad dareentid ilaah inuu kula hadlaayo, ilaah inuu amar ku siinayo, marka maaragtay macaani badan ayaa kuusoo baxaysa. aayadihii maaragtay waxaad dareemeysaa adiga in lagula hadlaayo, ilaah inuu adiga kula hadlaayo. dadka salafka waa dhihi jiren haddaan rabo inaan ilaahay la hadlo salaadaan tukan jiray, hadduu ilaahay inuu ila hadlo aan rabo hadalka ilaahay inaan dhegeysto qur-aanka ayaan maaragtay aan akrin jirin. marka waa nin saas ku noolna oo ilaahay isla tacaamulayo. maxaa sharaf kaaga weyn maaragtay inaa adigii makhluuqa ahaa in aa ilaahay aad baratid oo ilaahay aad la tacaamushid oo ilaahay hadalkiisa aad dhegeysatid oo ilaahay maaragtay uu ku tawjiihiyo oo ilaahay markaa maaragtay aad kaalmaysatid oo kuu sheego maaragtay ilaahay dacmigiisa, kaalmadiisa, hanuunkiisa,
naxariistiisa fadligiisa maxaa ku gaari kartaa qur-aankaa ku gaari kartaa qur-aanka asaga ayaa kuu sheegana waxa waa fadliga ilaahay waxaan waa naxariista ilaahay waxaan waa maaragtay ilaahay caradiisa waxaan waa maaragtay cadaabka ilaahay lagu gaara waxaan maaragtay waa sabiil almu'miniin tan waa sabiil almunaafiqiin tan waa maaragtay sabiil alkaafiriin tan waa kada tan waa kada marka maaragtay qofkii wuxuu noqonaa nin maaragtay yani cilmi aada iyo aada u fara badan helay oo saxaabada ay dhihi jireen ninkii rabo in uu ogaado cilmu alawaliina waalaakhiriina falyaqra' alqur'aan qur-aanka ayaa wuxuu kuu sheega dadkii hore cilmigoodii yani xataa qiyaamihii jannadii naartii qabrigii wax kastoo adduunkan uu ka dhacayo wax kasoo socdo wax lasoo dhaafay fiihi naba'u man qablakum wa khabaru man bacdakum yani waa makrajkii maaragtay musiibo kastoo dhacdo fidno kastoo dhacdo qur-aanka looga bixi lahaana marka qur-aankan maaragtay oo intaas oo kunuuz ay ku dhex jirto intaas oo maaragtay macluumaad ay ku dhex jirto intaas oo iimaaniyaad ay ku dhex jirto intaas oo anwaar ay ku dhex jirto intaas oo khasaa'is oo leeyahay qur-aankii oo loo baahan yahay marka qofkii muslimka inuu ka dhergo qur-aankii laakiin qur-aankii haddaan ka dhergin oo qur-aankii maaragtay tacaamulkeena uu noqdo qur-aan maaragtay yani bishii hal mar inaan fiirin ama maalintii 2 daqiiqo 3 daqiiqo inaan isha aan ku xadno amba maaragtay aan dhegaysano asagoo maaragtay qulubteena ilaahi kaafil ay tahay marka taa waxay noqonaysaa waa dad markaa maaragtay yani oo qur-aanka uu ku tilmaamayo ulaa'ika aladiina lam yurid illahu fihim khayran yani ilahay khayr lama doonin qofkana waman yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin marka yani qofkii yani ha garto maaragtay qur-aankaas yani qiimihiisa wanaagiisa iyo maaragtay fursadan adduunka oo haysto culamada waxay dhihi jireen maaragtay qofka maaragtay xataa darajadiisa qiyaamaha iyo makaanadiisa iyo waxyaabihiisa waxay ku xiran tahay adduunkan inta ilaahiisa oo ka barto ilaahay darajada macaarifyada u leedahay yani taas ayaa ku anfacaysa qiyaamahana ala hada almustawa ayaa maaragtay makaanada gaari karta dad waxaa jiro caamiliina oo iska dukanayo iska qur-aan iska akristanayo iska yani acmaal badaniya keliya sameynayo iyo dadna waxa way qalbigooda ayaa nool qalbigooda ayaa dhaqaaqaya daratu min acmaali alqulub afdal min amhaali aljibaali min alacmaal yani qofkii markii uu maaragtay rakcateyn oo qofkan uu tukado iyo maaragtay iyo ninkaa rakcateyn uu tukado ninka maaragtay qalbigiisa uu saa u nool yahay iyo ninkaa kale yani farqi waxa udhexeeya bayna asamaai waalard ninkaa markuu sujuudsan yahay waxa uu dareensan yahay iyo ninkaa markuu sujuudsan yahay waxa uu dareensan yahay farqi weyna udhexeeya nin ayaa sujuudsan ilaahay u sujuudsan yahay wamaca dalika waxa waaye maba yaqaanaba inuu sujuudsan yahay in kale ma dareensan ma qalbigiisa maaragtay ma dhaqaaqsana yani waxaa laga yaaba meel kale inuu ku fikiro inuu gabgab iska yiraahdo salaada hadhow markuu ka baxo usan garanayn 3 ragcamo u tukaday 4 ragcamo u tukaday imaamka muxuu akriyay yani salaad inuu ilaahay hor taagan yahay inuu maaragtay dad kale la sheekeysanayo markuu dad kale sheekeysanayo hadalkooda fahmaana laakiin markuu salaada ku jiro hadalkiisa ma fahmayo yani ataxiyaadka qiimihiis ma yaqaan qur-aan akriskiisa qiimeed ma yaqaan yani dacooyinka nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo maaragtay adkaarihii oo loogu talagalay inuu qofka ilaahiisa uu ku barto lama yaqaan marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaaba oo khatiir ah oo tusinayso qofka inuu qalbigiisa uu daboolan yahay ama qalbigiisa in uusan soo jeedin waa tan ugu khatarsanna afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha waxa u diiday muxuu yahay qalbigaaga inuu qur-aanka uusan ku tadabburin ma qalbigaaga miyaa daboolan waa arrin khatar ah qalbigaaga hadduu daboolan yahay oo la qafilay waa arrin marka macnaha waxay tahay maaragtay adigii maaragtay yani xaaladaada aad ayay khatar u tahay qofka haddii la yiraha maanta waxaa kugu dhacay cudur maaragtay cuduradaas waaweyn oo naxa qofkii maaragtay isaga dhan ayaa murgaayo isaga dhan ayaa maaragtay wuxuu maaragtay tamanina yani xaalada inuu ka baxo oo maaragtay nin caadi inuu kusoo noqdo fama baaluka haddii lagu yiraha adigii niyo maaragtay qalbigaaga waa daboolan yahay khalaas waa ku dhamaatay man خسر الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة والعافية يعني ضلال مبين أي كسبين يقفك هو أرين آد خطر ولو باين قفك مسلم كا يعني إن أو مارتي أرنتها أو كبر مركز الضلال كاس وحيابها سؤالا نور كا أو قرآن أو كتب المامي مقعيد القرآن وحكمت آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا يعني فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا مركز نور كا أسجع مارت قلبي إنه قلو نوش هذا إنه بدله هذه marka maarta
takwiinkaaga oo nafsiga ah inuu bedelo. bini-aadamka wuxuu leeyahay naf iyo jasad uu leeyahay. jasadkaaga maaragtay cuntada cunaysid iyo maaragtay daawooyinka qaadanaysid iyo waxyaabaha ayaa jasadkaaga maaragtay shaqo ku leh oo mar walba markaama. laakiin ruuxdaada iyo qalbigaaga iyo naftaada iyo maaragtay macaanida isaga ah qur-aanka ayaa shaqo ku leh. naftaada maaragtay xaala iimaaniya inaad ku sugnaatid oo maaragtay aad tahay nin maaragtay ilaahay subxaana watacaala qalbigiisa geliyey yani raadi ahaasho oo ridaa yastamtic maaragtay sacaado ku nool oo maaragtay dareemayo oo maaragtay yani nin maarata akhlaaqiyaadkiisa heerkaa ay tahay iyo nin waxbaas oo dhan uu ka maqan yahay oo maaragtay sida xoolaha oo kale oo qur-aanka ugu timi ulaaika kal ancaami bal hum adal. marka waa arrin maaragtay loo baahan yahay qofka muslimkaa maaragtay in uu qur-aankaas uu ka faaidaysto intuu nool yahay, intuu caqli u qabo, inta fasax u haysto oo adduunka uu joogo. marka maaragtay inuu maalinta ka dambaysto in uu xaaladiisa ay kor usii socoto. marka waxaan dhahnay maaragtay qur-aankaas waa inaan fahamnaa qiimihiisa oo ilaahay uu nagu manaystay oo maaragtay oo ilaahay uu noo soo dejiyey annagu waxba aan ahayn oo makhluuqaadkaas daciifka ah inuu ilaahay subxaana watacaala maarata hadalkiisa oo noo soo dejiyo maarata tawjiihaadkaas oo noo soo dejiyo calaa maaragtay qalbiga nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo kusoo dejiyo oo markaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam maaragtay oo aan garanayno sifaadkiisii oo maaragtay oo qur-aanka oo kaamil oo noo soo gaarsiiyey oo markaa maaragtay fadliga ilaahi subxaana watacaala haddana maaragtay qur-aankaas aan oo bedelaynin oo maarata ilaahay oo xifdiyey oo markuu soo degay qabla maarata 14 qarn ama 15 qarn ilaa yawmina hada oo saa nagu soo gaaro anagoo gadaal ka nimid oo qur-aankii sidiisa ah oo haddana oo noo fududeeyey walaqad yastarna alqur'aana lidikr oo aad baran kartid oo macaanidiisa aad fahmi kartid oo maaragtay nin kasta oo ka faa'iidaysan karo oo maca dalika maarata aan dayacno oo qur-aankii aan maaragtay aan la tacaamulno kaanahu lam yakun. marka waxay tahay waa gaabin aada iyo aada u foolxun oo marka loo baahan yahay ninka muslimka zamankan uu joogo oo fitnada ka sheeganayo, dhibaatada ka sheeganayo, dacfiga muslimiinta ka sheeganayo, yani mashaakilaadka badan ka sheeganayo, yani xaaladaha bashariyada ay ku nooshahay, halaaga ay ku nooshahay, dhibaatada ay ku nooshahay, waxaa dhan ka sheeganayo. yani makhrajka loogu bixi lahaa dhan waa qur-aankaas. adiga markaa qur-aanka aad la tacaamushid, walaalkaa markuu qur-aanka la tacaamulo, gurigaaga markuu qur-aanka la tacaamulo, yani adiga markaa isbedeshid, qalbigaaga isbedelo, noloshaada dadka kula hagaagsan maarata wax xiriir ay bedelaan. yani dadkii marka bashariyadii waxay gaaraysaa maarata nolol aada iyo aada u fiican oo adduunka ay ku noolaato, aakhirana ilaahay subxaana watacaala uu ku manaysto naxariistiisa iyo fadligiisa sidoo adduunka ugu banaystay. marka ninka muslimka ah maaragtay daawadiisii iyo salaaxiisii iyo maarata sacaadadiisii way ag taalla. isaga ayaa marka maarata ka fogaanaya sacaadadiisii maaragtay wanaagiisii iyo waxyaabihiisa isaga ayaa ka fogaanaya oo ku noolaanaya markaa diiq iyo xusni iyo shida iyo kurba iyo dulumaad bacduha fawqa bacd oo mar walba markaa maaragtay oo sii halaagsamayo qofkii oo maaragtay noloshiisa ay sii gaarayso xaalado aada iyo aada u adag. marka ninka muslimka ah maalin walba wuxuu dareemaa ilaahay fadli inuu siiyo. maalintaa waaga oo ku bariy yani maalin ayuu ilaahay ku siiyey, maalin kale ayuu ilaahay ku siiyey, maalin kale ayuu ilaahay ku siiyey. marka shalay iyo maanta iyo berito waa inay ku xisaabsanaataan oo aad leedahay sidii qofka jaranjaro koraayo kor inaad tahay. maanta waxaa qortay beri waxa kale waa sii socotaa waa sii socotaa waa sii socotaa ilahay u sii dhawaanaysaa. yani waxaad ziyaadsanaysaa khayr badan aad ziyaadsanaysaa. yani noloshaadi wax badan ayaa ka bedelmaayo, wanaag badan ayaa gaaraysa, macluumaad badan ayaa helaysa, iimaaniyaad badan ayaa helaysa, yaqiin badan ayaa gaaraysa. laakiin qofka hadduusan jaranjarada uusan arkin bon yani ama meel iska fadhiyo ama gadaal u socdo bo maaragtay yani oo intuu hore u socon lahaa gadaal u socdo waa nin markaa maaragtay runtii aada iyo aada oo maaragtay lunsan oo u baahan marka maaragtay in maaragtay oo dib usoo noqdo. marka ilaahay subxaana watacaala maarata hanaga dhigo dadka maaragtay wadadii arka oo wadadii qaado oo markaa maaragtay ilaahay subxaana watacaala maaragtay fadligiisa qaato. qur-aankii qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxu huwa khayru mima yajmacuun. bini-aadamka waxay aroorsadaan oo adduunyada ah waxaa ka fadli badan qur-aanka qofka maaragtay in uu zaad uu ka qaato, yani maaragtay fadli uu ka qaato, nuur uu ka qaato, cilmi uu ka qaato. yani taas ayaa maarata aada iyo aada u fiican, ayaa ka khayr badan oo ka fadli badan oo maaragtay ka wanaag badan
qofka maaragtay inuu ama xoogaa lacag inuu aruursado ama xoogaa maaragtay jagooyin ama kada waxyaabo oo maaragtay qofkii markaa maaragtay adduunyada waa tataqallab mar maalin xaalad ayay ku sugan tahay laakiin fadligaas isaga ah qalbigaaga markuu soo galo qalbigaaga markaa maraaxiishaas aad gudbinaysid maaragtay usii darajaadkaas aad koraysid waxaa noqonaysaa nin markaa maaragtay ilaahi subxaana watacaala maaragtay fadligiisa ku socdo oo markaa ilaahay maaragtay dalika fadlullahi yuutiihi man yashaa wallahu waasicun caliim marka ilaahay waa waasic ilaahay dulfadli cadiim waaye marka maaragtay khayrkaas bal maaragtay ilaahay subxaana watacaala hanagu manaysto aqulu qawli hada waastaqfir allah li walakum. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.